ciidamadan ayaa muddo 3 bilood qaadanaya tababarkan waxa ay ku baranayaan cashiro ay ka mid yihiin xeerka ciidanka booliiska, xeerka nabadgelyada wadooyinka, xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida iyo shuruuc kale oo laga maarmaan u ah hawsha ciidanka booliiska. Taliyaha dugsiga tababarka ee General Kaahiye Sarreeye Guuto Cabdirashiid Aadan Xirsi ayaa sheegay in ay wax badan ka kororsadeen muddadii tababarka ay qaadanayeen ciidamadan. maanta maalmaha qaarkood way nooga duwan tahay gaar ahaan akademiga maanta aynu fadhinaa waxaanu maanta ku tilmaamayaa maalmaha ugu horeeyay taariikhda bisha maanta aynu joogno oo akademiga booliiska ee taliyaheena Sarreeye Gaas Cabdi Xasan Jaar oo nagala soo qayb galay inuu tababarkan muddada 3 bilood socday inuu maanta uu soo xiro waana nasiib. taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Sarreeye Guuto Saadiq Cumar Saadiq John oo ay hoostagaan ciidamadan ayaa sheegay in ciidankan ay u diyaar garoobaan gudashada waajibaadkii loogu talagalay. ciidanka maanta koorsada loo soo xiray waxay nasiib u yeesheen inay helaan taliyihii ugu horeeyay oo asagoon ciidan kale la kulma hor yimaada. waxaan aad u rajaynayaa inaad nasiibkaas ka faa'iideysataan oo mar dambe aan koorso la idin soo xarayn. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Sarreeye Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo tababarka soo xiray ayaa kula dardaarmay ciidankan in ay ilaaliyaan hantida shacabka iyo sumcadda ciidanka booliiska. waxaan aakhirtu idin kula dardaarmaya ciidan wuxuu ku hawlgalaa ama magac iyo sharaf ku yeeshaa dharka markaad qabtid booliis baa tahay discipliinka in la adkeeyo haddii aan kala sarreynta iyo discipliinka la adkeyn wax noo hagaagayaa ma jiraan. waa dardaaranka koowaad ee idin siinayo. dardaaranka labaadna waxa weeye dadka shacabka ah ee aad u adeegaysaan ee laamiga markaad joogtaan oo saldhiga joogtaan dhowr milyuun oo qof baad la kulmaysaa mid careysan mid faraxsan mid xanaaqsan marka dadka inaad u dulqaadataan oo yeelataan dulqaad ayna idinka muuqato astaantii inay booliisku yahay ciidan u adeegaya. taas waxaad ku khusaysaa qofka ii soo dacweeya wuxuu leeyahay kontaroolkaas niman booliis ay igu maagay marka booliiskaas inuu jananka yahay inuu askari yahay inuu heegan yahay lama kala yaqaan. magaca hal qof hadduu duleeyo ama dhib u geysto kulligan waana wada gaaraya. marka aad dadka la macaamilaysaan shacab weeye dadkani waa shacabka idinka hor imaanaya haddaad albaab ka baxdo qofba xaaladiisu meel bay ku sugantahay mid baan. ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa uu xil saaran yahay sugidda amniga gudaha iyo ilaalinta sharciga.